madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta si rasmi ah waxa uu daafuray mashaariic kala duwan oo horumarineed kuwaas oo hirgeliyeen mas'uuliyiinta wakaalada biyaha ee Burco. madaxweynaha oo booqday xarunta wakaalada biyaha ee Burco ayaa kormeeray indhaindhayna waxa uu ku sameeyay qaybaha wakaalada biyaha Burco. ugu horeyn maarayaha wakaalada biyaha Burco Cabdixakiin Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu faahfaahin madaxweynaha Soomaaliland ka siiyay mashaariicaha kala duwan ee horumarineed ee ay ka hirgeliyeen wakaalada biyaha ee Burco. mudane madaxweyne ay ka kooban tahay 280 qof oo shaqaale ah oo ay 60 kamid yihiin dumar yihiin 60 kamid waa haween waxaan kaloo madaxweyne ka howlgala koobiyo 28 gaari oo ay leedahay wakaalada biyaha Burco oo ay ku jiraan 2 cagaf iyo gaari wiisha qalabka iyo agabkaas oo dhan wakaalada biyaha Burco leh waxa kaloo maanta mudane madaxweyne ku soo dhaweynaa halkan daafurka yaraan sameynay waa mashaariicda ongoynka imika noo soconaya oo ay kamid yihiin 4 ceel oo imika aan soo saaray oo 4 ceel oo imika soo noo shaqeynayo qiiq cusub oo imika taagan 4 gaari halkan ku sawiran oo imika dekada ka soo baxay saaka 3 xafiis soo jeedo imika dhisnay oo wali aan farqa xariga laga jarin beebkan iyo fitness kan yaallay kala duwan oo aan ugu tagnay 10 kilomitir biyo filinta magaalada
halkaa waxaa ku jira 3 mishiin oo iyaguna dhammaan intana waa inta cusub ee imaka waxna dekada ka soo baxeen sanadkan gudihiisa magaalada biyaheeda waxa ah 11 IDB oo magaalada baa jira dadkan barakayaasha 11 IDB biyuhu way gaaraan si wanaagsan baa biyuhu cabaan waxa kale oo biyahan soo saaro hoofafid waxay ku baxaan bulshada dib ugu celinaa sida jeelka dhakhtarka weyn xanaano station boolisyada qaybaha kala duwan ee masaajidada malcaamadaha iskuulada dawliga ee waxbarashada waxyaabaha soo dhan waxaan wakaalada biyaha ka fargaraysa biyaha magaaladu way fidaysaa waxyaabaha mushkiladaha haysta wax kamid madaxweyne systemka biyuhu shidaal bay ku shaqeeyaan reer burcana taangiga male waa magaaladii biyaha ku hodanka marka hore waxaan inta badan isku haysanaa wayna kaydad samaysataan waayo dadku waxay ku cabaan daaragti bal marka ceelka la soo istaaro ayuu qofku ku daaraya ayuu qasabadiisa ku xalaya xitaa foosto biyaha ku shuban maayo waxaana taa kaliftay magaalada inta badan biyaha ku hodana waxa marka taasi sababtaa kooska ku baxa shidaalka bishii $45,000 oo shidaal aan bishii bixin jiray marka waxay sababtay inaanu balceelasha soo rogno bangiga gudoomiyaha bangigu lacag sanadkii hore lacag buu naabaahiyay aanu xafiisyo gaadiid ku soo iibsanay markaan iska bixinay sanadkan mid kale naabaahiyay waxaana aad iyo aad noola shaqeeyay wasiirka horumarinta biyaha mudane maxamed muuse diriye iyo wasiirka hore biyaha salaam cali koore oo iyaguna in badan oo hagar baxay 5 ceel biyood baan sanadkan 19ka loo qoday magaalada 4 ceel biyood laba fadhiina waa loo kiciyay laba cusubna mudane madaxweyne waa loo qoday welina kuma filan mana dhadhawaa ilaa 30 ceel bay u baahan tahay magaaladu ugu yaraan geesta kale madaxweyne muuse biixi cabdi isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ammaan u soo jeediyay mas'uuliyiinta wakaalada biyaha burco isagoona ku bogaadiyay dadaalada horumarineed ay ka hirgeliyeen wakaalada biyaha burco ammaan badan iyo tusaale wacan baa keenteen oo aad iyo aad baa kuma soo anoo idinku bogaadinay tan kale wasiirkii oo hawlahan iyo isbuutay warbixintooda wuxuu ku qasbay waftiga ka haro gurmad uu galay biyo yaraan ka jirtay magaalada Boorame oo hadda degdeg emergency ee loogu qodo oo loo sameeyo halka atirahooda baarahayn oo burco qura dalka kala dhawa ka dhisay beentiro magaalo waro kale waxa lagu jiraa gurmad biyo oo deeq ilaahay ducaasiyay ina si wacan maamulata way aad baan idinku bogaadinayaa hawsha ay ku dheehan tahay cilmiga aqoonta iyo xoogga dhalinyarada oo cusub ee keenteen waan idinku bogaadinayaa ummaduna way idinku mahadnaqaysaa annaguna wixii hawsha wasiir madaxweyne iyo gobolba way garab taagan ugu dambeyn madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si rasmi ah u daahfuray 4 mashruuc oo horumarineed kaasoo hirgelisay wakaalada biyaha burco iyo sidoo kale dhismaha xafiisyo lagu soo kordhiyay qaybaha wakaalada biyaha burco halkani Warda TV kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla marhaantaasina ku cajab geliya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenahay YouTube ka subscribe sa mahadsanidin Warda TV